marna marna aan lagala harin abkani ma yaqaanana hawlaha u kala diyo hadafkiyo ujeedada أنا ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashadana yani muxuu ahaa deeqda wanaagsan ee dadkana wax taraysa ardaydeena wax taraysa iyaguna nagu maxmaan marka annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan sida ugu fiican looga faa'iideysto dadkana looga faa'iideeyo ardaydana looga faa'iideeyo dee waddankana wax laga tara haddii alla yidhaahdo boorama ee caamka ahayd taasi oo noqon doonta ta ugu weyn ee wax lagu akhristo dhismo aad u ballaaran oo qurux badan uu noo hirgeliyey runtii wasaaradda waxbarashadu ay soo bixisay lacagteeda madaxweyne mid baan waxaan samaynay jaamacaddii Camuud baa nagu dhegan dhulkanna waxaa ahal u ahaa markii jaamacaddii Camuud baa iska lahayd dabadeedna markaan ka dhisnay maktabadda waxaanu sheergaraynay jaamacaddii Camuud half and half mas'uuliyaadka anaa soo magacaabay laakiin shaqaaluhu waxay noqon doonaan shaqaalaha jaamacadda Camuud markaa Dr. Saciid Axmed Walahad runtii Dr. Ismaaciil oo runtii dadka ugu aqoonta badan ku jira baa ii yimiday waxayna madaxweyne codsadeen jaamacaddii inay sheergarayso halkan waanu ogolaanay iyagana maanta aqlabiyadda buugta kuwaan soo dhignay mooye kuwa kale iyaga soo dhigay waxay noqon doontaa maktabadda guud ee qaranka uu ku leeyahay magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxa marka haddana sheerka waxa wada maamuli doona wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda Camuud waaxdeeda Medicine-ka ayaa maamuli doona madaxweyne ku soo dhawow madaxweyne goor gaaban hadalkeed gaaban mashruucan doonista hawada wuxuu ka mid yahay mashaariicda maanta aad furaysay ee istaba taxnaa ilaa iyo saaka oo u horeeyay biyihii dhaamamkii weynaa ee ku bixisay mashaariicda $300,000 waxay noogu xigay library-gii intii kale waxaan u dhigannay haddii aan la yiraahdo berito waqtiga oo gaaban awgeed waxaan madaxweyne ka qabanay garoonka waanu xadeynay 5 kilomitir iyo 200 ayaanu sil ku soo wareejinay marka hore waxaanu qorsheynay in la xadeeyo 7 kilomitir inta kilomitir 800 naga dhiman waxa degan dad aad iyo aad u badan runtii dhulkana waa runtii dhulkuna waa idinka dhibaato badan aynu kala kulannay marka 5 kilomitir iyo 200 baan noo suura galay inaanu xadeyno oo silig fiican aan ku soo wareejinay waxa kale madaxweyne aanu sameynay dhabada diyaaradaha waxaan ka sameynay kilomitir iyo 700 oo garaafala oo intii ceeri gaabi iyo burco kala ah 300 bay ka yar tahay imika laga bilaabo way ku soo deegi karaan diyaaradaha marxawadaha leh laakiin waxay u baahan tahay iyagana mustaqbalka in asfalkii la saaro daamir la saaro garoomada gobolada waxaan ugu talagalnay terminaal yar oo kooban oo ilaa 60 qof markiiba ka dhoofi karaan ilaa 70 ka soo deegi karaan oo laba hoola iyo taawarkii halkii la saarayay magaalada ceeri gaabo waanu dhamaystirnay Boorama maanta aan doonayna noo dhagax dhigto oo kaana dhisno haddii la yiraahdo intaas aan anagu qabanay waxaan ka qabanay miisaaniyadda hay'adda duulista iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin madaxweyne markii asfal noqotay in daamir la saaro kale way naga awood badan tahay mahadnaqay wasaaradda waxbarashada ee hirgelisay library-gan iyo jaamacadda Camuud ee ka qayb qaadatay aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa aqoontu waa wax weyn library-inta lagana samaysaana waa guul qaran aad iyo aad baa mahadsantihiin waxbarashada waa sii xoojinayna waxa akhriska iyo iskuulada iyo horumarka raggii bilaabayna waa mahadnaqnaa geed hoosta ka bilaabay aad bay u mahadsanyihiin